Assalamu alaikum. Come with me to grocery shopping at Whole Food. Sa ujeedin cuntooyinkas quruxda badan. I don't know you guys. Ani waxyaalaha like qudrad ayu nooc kasta hadee noqoto wallahi waa cunaa been ma sheegi kari laakiin qaarkood waxaa jiro oo carabkayga diido aan necabahay laakiin ani waxyaalaha jecelahay waa soo gataa. Whole Foodka waxaa ku dhahay lately Whole Foodka dukaanka kaliya zaid kugu adeegto waa Whole Foodka. So alhamdulillah sa ujeediinbo I am getting my favorite berries aan jeclaha soo gadanoya. And that plant-based idin tusaya I'm just maanta ma u baahnayn but plant-based protein waaye and I love it so much. I'm not gonna lie to you guys. So yes, and then waxyaalo kale oo qurux badan aan idin tusaya caafimaadkiina u fiican especially that golden milk iyo waxyaalo kale oo tirada ka badan. Fitamiinadeeda saa ogtihiin fitamiinadeeda waxaa ka gataa like any store ka gataa basically waxaa ka gataa Whole Foodka kale or like Whole Foodka waa ka gataa iyo like dukaanka kale waxaa jiro like oo Colorado ku yaali jire ani Colorado waa ka imaaday so dukaanka kale oo Colorado ku yaali jire iyo like laba dukaan oo Colorado ku yaali jire but here mid maba qabaanbo midna way qabaan but it's located in Register I believe Minnesota Register uu ku yaalaa so halkaas sitana ani way iga fogtahay because ani meesha deganahay waxaa waaye St. Paul Minnesota, that's where I live. So basically I'm just showing like all the goodies that I'm trying to get. Ma fahanteen waxyaalaha oo jirkaada u fiican hal isku ogaado waxyaalaha wallahi bilaay jirkaada u fiican caafimaadkaada intaa yar tahay ka tali ka shaqeeya maalinta 60 aa gaartid ama 70 gaartid da'daada ha lagu murmo hala dhaho qofkani ma 30 buu jiraa mise 40 inaa lagu dhaho hadaa rabtid makuu sheegaa intaa yar tahay oo 20 ama 30 dhaxyaacaysid isdaba qabo wallahi bilaay been midii sheegaayo runta ka hadlaya waxaa fiican inaad isku roonaatid waxyaalo nafaqo leh aa cuntid Mansha Allah. So adeegeena ujeediin markaa soo gatasaas hadeertaan harra fadhe because appointment wiilkayga yariska lahaa. So yes mahadsanidin.